Barnaamijkeena ciyaaraha ama falanqaynteena kooban waxaan ku eegi doonaa tababarihii hore ee kooxaha Manchester United iyo Roma ayaa waxa uu sheegay in kooxaha qaar uu ahaa tababare caadi ah halka kooxaha qaarna uu tababare iyo waxyaalo ka badan oo kala shaqooyin kale saayida u qaban jiray. Marka ujeedadiisa waxa laga yaabaa inay tahay magaranaysa xataa ciyaaryahanada dadka maamulka noqonaya macnaha talada kooxaha qaar inuu tababare ka sareeyay ayuu sheegay. Wuxuu sheegay kooxaha ay ka mid yihiin Chelsea iyo Real Madrid iyo kooxda Manchester United inuu ahaa tababare rasmi ah oo caadi ah oo shaqadiisa tababaraha iyo kooxdiisa iyo inta ciyaaraha uu ku koobnaayo tababaraha. Kooxaha kale oo soo maray faraha badanna waxa uu sheegay inuu qaarkood shaqooyin fara badan u qaban jiray. oo maamulka kooxda kale wax la wadi jiray, hawlo kala shaqayn jiray, ciyaaryahan kala yariyo, kala soo iibsanayo, macnaha shaqooyin dheeraad ah oo ahayd dad kale inay qabtaan inuu soo qaban jiray ayuu sheegay. Marka ninkani muddo badan uu tababare soo ahaa. Marka taa lafteedu waxay sheegaysaa in tababarayaasha qaar kooxaha lagu dulhayo xataa lagu maamulo oo iyaga lafteedu ciday safayaan, ciday keenayaan sida kooxdu soconayso waxaas oo dhan. Kooxaha qaarkood waxa ka mas'uula tababar uu ku magacaabanayay laakiin cid kale ka mas'uul oo kooxaha ama cid lacagta u haysa ama kuwa suuqa had iyo jeer u tagaya ayaa kooxaha qaarkood maamula oo shaqada haya. Laakiin Jose Mourinho wuxuu sheegay inuu isaga laftiisu kooxaha qaar uu shaqooyin kala duwan oo fara badan uu qaban jiray. Imika kale tababaraha Ingiriiska ayaa la leeyahay waxa weeye FA-ga Ingiriiska ayaa la maamula muxuu ahaayeen ciyaaryahanada xulka England oo inta badan isaga ciyaaryahanka uu doonayo inuu ciyaarsiyo iyo saameyn ku yeelatay wuxuu talaabadu hadba qaadayo dad baa u gooya la leeyahay. Marka tababarayaal badan oo taa lagu dheelay waa jiraan waxa kamid ah ninkii la oran jiray Arsenal Arsene Wenger ayaa isaga laftiisa la oran jiray cid kale la maamusho kooxda isagu go'aanka u dambeeya male. Jose Mourinho wuxuu kamid yahay tababarayaasha aadka u adag ee had iyo jeer isagu waxa uu doonayo ku maamulo kooxaha. Ciduu doonayo haduu doono ciyaaryahan ay kooxdu lacag badan soo siisatay laga yaabaa inuu marmarka qaar beach ka dhigo, qaar badan ka eriyo, qaar soo iibiyo. Marka waa in isagu adag laakiin tababarayaasha qaar ayaa maamulka kooxuhu had iyo jeer cid aan u qalmin ayay ciyaarsiiyaan oo marmarka qaar guul darrooyinka kooxaha qaar bay ku keentaa. Marka ninkaasi wuxuu kooxaha qaarna tababaran ka ahaa qaarna hawlo kala dheeraad ah baan u hayn jiray. Marka waxay cadeynaysaa in kooxaha ay kala duwan yihiin qaababka managerada iyo tababarayaashu ay u maamulaan. Falanqaynteena koobanna intaas ayaan ku soo koobay.